الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي تضبي تضباطناد يا كتاب كان حكم وفوائد من رواع الإمام ابن القيم رحمه الله أذكارتي الصباح والمساء يا جبدي دي بان كجرني وهاكم إذا ذكر عن ربي سجن إن براروجينه سبحان الله وبحمده 100 مرة وانت كلي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده قفكي بقول جيري هذا من قالها 100 مرة قفكي بقول جيري هذا حين يصبح مركو واو أبريو وحين يمسي مركو قلبتي أي تهي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به قف لا إيمان كرا قف كاسوح أو ليمد وحكفض بدن مجره إلا أحد قف أو قال مثل ما قاله أو زاد عليه إلا روحي إنت إن لأج يراهدا باكولا سمن قف كده إنت كبضان يراهدا وكبضان يحي مركوا بقول جير روح يراهدا سبحان الله وبحمده قف وح كبضان لا إيمان كراي مجرو إلا روح إنت إن لأج ليمد أما قف كبضي موغي طيب waxaa ka mid ah adkaarta iyadana muhimka ah oo raba inaan baraarujino dikriga laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu huwa calaa kulli shayin qadiir 100 mara wuxuu rasuulku qofkii yidhaahda 100 jeer idaa asbax man qaalaha 100 mara fii yowmin kaanat lahu qofkii maalintii 100 jeer yidhaahda waxay u dhigantaa 10 addoon oo la xoreeyey waxaa kaloo loo qorayaa 100 xasanana waa loo qorayaa waxaa laga tirtirayaa 100 dembina waa laga tirtirayaa waxay u noqonaysaa tani waa xirzan min ashaytaan maalinkaana shaytaanka xijaab bay kaaga noqon ilaa galabtii laga gaadho marka qofna lama imaanayo walam yaati axadun biafdala mima jaa bihi qof ilaa axad oo isaguna camila akthara min dalik intaan ruuxii kaa dheereeya unba adna kaa fadli badan ma ogiyo qof kale oo ku gaari karaayo ma jiro marka waa axaadiista iyagana aadka u fadli badan subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi waradaa nafsihi wazinata carshi wamidaada kalimaati 3 jeer iyagana qofkii yidhaahdaa ee waagu markuu baryo iyo galabtii adkaarta fadliga badan bay ku jirtaa qeybta adkaarta waxaan kusoo xidhaynaa ذكر رسولك ويلي قفك إلى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات قفك انت إلى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من قالها قفك إلى حين يمسي مركو قلبيس 3 جير أما صبحي مركو إلى 3 جير قلبتي الروح إلى هذا لم تضره قفك لبي ميسو ما في هبينك إساقا واحد لبعتا قنينيو iyo waxyaabaha dhul socodka ah dhibi mahayaan ruuxii galabkii akhriya isagana dhibi mahayaan dabcan adkaarta marka la aqriyo waxaa lagu bilaabaa markaad ducaysanayso oo dhan ilaahay baa lagu xamdiyaa ilaahay baa la ammaanaa uma rasuulka lagu salliyaa kadibna waa la ducaystaa kadibna gebagabada salliga rasuulka ayaa lagu soo xidhaa oo lagu soo gebagabeeyaa waxa ugu fadli badanna waxaa weeye adkaarta xilliyada ay fadliga badan tahayna in la raadsado tani waxay adkaaru sabaax walmasaaba ahayd xilliyo go-an baan hadda ka hadlayna kitaabka xusnu muslimka ah oo adkaarta ah oo kitaabka yaree jildiga xaashida guduudan id aragteen ee jildiga dadku wada haystaan ee guryaha inta badan yaala jeebkana geli kara kitaabkaas in lala noolaadayo waa wax fiican waxaan runtii anigu idhahdaa waa irmaanka diinta wey diintu waxay leedahay irmaan iyo hurweyn sida geelu uu leeyahay dadka geela yaqaana geela hurweynka manaafacaad badan ma leh waa iska foofaa waa maqan yahay waxba lagama dheefo laakiin 4 halaadoo irmaan oo ilmaha loo liso ayaa ka fiican oo guriga jooga marka sidaas daraadeed diintu iyadoo tiro badan haddana irmaankeedu waa in lagu dhaqmo wey marka adkaarta kowka adkaarta haddaan soo maraynay arag adkaaru noom baa kusii xigta oo iyadana qeybta ku xiga haddaad sii wado kitaabkooda aqrido hurdada markii la seexdo oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ka xijaabaya sidii uu rasuulku lahaa sal allahu alay wasalam qofka aqriya aamana rasuul iyo labada aayadoo ugu dambeeya fi suurat albaqara aamana rasuul bima unzila ilayhi min rabbih walmu'minuun iyo aayadda ka dambeysa kafataahu way ku filan yihiin waxay kaga filan yihiin wax
kastay kaga filan yihiin. Man qara'ahaa fii leylatin kafatahu, way kaga wax walba, dhul socod bay kaaga filan yihiin, dhibaato kusoo way kaaga filan yihiin, waxba ku asiibi maayo. aayatul kursigii baa lamida oo isagana uu yidhi uu xijaab oo maaragtay shaytaankii uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam man qara'ahaa idaa aawa ilaa firaashii, qofka aayatul kursiga akhriya markuu sariirta gelayo, waxa qofka isagaa fa inahu laa yazaalu calayhi min allahi xaafid, waaba lagu ilaalinayaaba, shaytaanna kuusoo dhowaan maayo. marka waa fawaa'ida insha allahu tacaala. adkaaru sabaax ha la aqriyo, adkaaru lmasaa ha la aqriyo, adkaaru noom ha la aqriyo, dikriga meelaha guryaha marka lasoo gelayo, marka laga baxayo, marka la seexanayo, marka waa waxyaabaha ilaahay inagu xijaabayo. ilaahay subxaanahu watacaala hayna xifdiyo oo hayna ilaaliyo. wajazaakum allahu khayr, baaraka allahu fiikum, wasala allahuma wasalam calaa nabiyina wasaxbi ajmaciin.